markaan waxbarashada ka warramayno waxay yidhaahdaan aqoon-yahanadu waxbarashada dunida taalloo dhan 3 qaybood unbaa loo qaybiyaa. waxbarashada dunida taalloo dhan waxaan waxbarashada xoog ugaga warramayaa waxa weeyaan dee ilmahan intaynu iskuul geyno ayna wax dhaba ku darsanin. si awgeed waxaan rabaa inaan tilmaamo waxbarashadu khatarteed iyo waxa loo dhigaa wuxuu yahay iyo natiijada productkay soo saartay si aynu arki karno. culumta bay yidhahdeen dunida taalla waa 3 qaybood. qayb waa la kala qarsadaa, laysmana siiyo, sinaba laysuguma ogolaado. basaasnimada dunida ugu weyna iyaday ka dhacdaa. qaybna waa laysku qasbaa, sankaa layska geliyaa, waa laysa siiyaa, waa la maalgeliyaa qofka baranaya. qaybna waa la kala gataa bay yidhahdaan. waxbarashada dunida taallaa bay yidhahdaan 3 qaybood. qaybta koowaad ee aan sinaba laysu siin waxay yidhahdaan waa culuum siyaada. waa culumta keenta wadan inuu dhaqaalaha dunida ama hogaamiyo ama xoogga dunida hogaamiyo ama waxaan hogaamiyo. waa culumta ku saabsan bay yidhahdaan maalan nuclear weapon iyo wixii ku saabsan laysuma ogola. ciddii xariiqdeeda xaggeeda soo egtana haddii la tumi karo waa in la tumaa. waa culumta ku saabsan cilmi alfadaa, cirka iyo waxaan loo diray iyo wixii ku saabsiisan. waa culumta ku saabsan hubka oo dhan iyo teknolojiyada ku saabsan. waa culumta ku saabsan core ideaha ay leeyihiin shirikaadkan waaweyn ee dunida ka jira. shirkadana ma bixiso core idea. maalan coca cola 100 iyo dhowr sannadood buu hadda secretiyey oo ay leeyihin mar kasta dunida 2 qof oo qura og xataa waxaa meesha ka jiro oo dhan. meel bay ku qarsoontahay, banki bay taallaa, 2 injineer oo quraa loo sheegaa waxaasaa la isugu qaldo. that's all. cid kale ogi ma jirto. 100 iyo dhowr sannadood bay hadda maraysaa. idan aqoomaha dhaqaalaha abuura, xoogga abuura, taliska abuura, waxaa abuura laysma siiyo. waxay yidhaahdaan dunida marka la eego basaasnimada ugu badanina waa meesha ay ka jirto. waxa ugu badana laysbasaasaa waa in aqoon la xado. weliba bay leeyihin waa meelaha inta isku jaalka ay xataa isbasaasaan isxadaan. sanada qaar bay waxay leeyihiin westranka basaasnimadii ugu badnaa isku sameeyey. waxaanay ku saabsiisan tahay maxay? core ideas la kala xadayo waa waxaa ku saabsan. aqoonta iyada laysma siiyo. ninkii agteeda soo marana waa laga durkiyaa. waana ta dunida loogu taliyo, dhaqaalaha dunidana lagu hayo. taasi waa qayb. qayb kale waxay yidhaahdaan cid waliba way faafisaa. dowladdu waliba waxay isku daydaa safaaradaha ay dunida ku leedahay inay qayb ka mida safaaradeeda ka dhigto qaybta wax faafisa. waa aqoonta ku saabsan bay yidhaahdaan identityga waddanku leeyahay. hadday diintay, hadday culture tahay, hadday values tahay, hadday taariikh tahay, hadday af tahay. safaaradaha dunida safaarad kasta aad timaado safaaraddu waxay leedahay qayb cultureka ah. safaaraddu waxay leedahay maxay? maktabi thaqaafi. maktabi thaqaafi muxuu sameeyaa? wuxuu hirgelinayaa taariikhdii waddankan inuu dadka baro, waxay rumaysan yihiin valueskooda inuu baro, afkooda inuu baro. ummad waliba waxay jeceshay afkeedu inuu faafo oo uu dunida gaadho. qaybtaasi bay yidhaahdaan waddan waliba deeqsibuu ku yihi. dunida inta kale diintiisa iyo dhaqankiisa iyo afkiisa iyo valueskiisa imika western oo dhan baad maqlaysaa waxay leeyihin xuquuqul bini aadamku ku xidhan yahay donorsku waxay bixinayaan. xuquuqda la sheegaya waa maxay? waa afkaartay reer galbeedku rumaysan yihin ama l b g t dheh ama kandhe ama waxandhe ama waxandhe waxoodaasay ku xidhan yahay deeqaha la bixinayo, waxa la samaynayo, politicska booska la iska taagayo. idan waa valueskoodii bay faafinayaan. waa xun iyo waa san iyo kaas iska damayso. waa valueskoodii baa faafinaya. waddan waliba wuxuu tijaabinaya afkiisa siduu noqon lahaa maxay? af international oo dunida laga yaqaano. waddan waliba wuxuu raadcaynaya taariikhtiisa sidii loo baran lahaa ayuu noqon lahayd. kaana sakaa la iska geliyaa waddan waliba inuu maalgeliyo. waana meesha ugu badan ee wasaaradda waxbarashadu qabato. higher education marka laga yimaado wasaaraddan waxbarashadu waxa ugu weyn ay qabataa waxa weeyaan
cultureka iyo valueska iyo afka iyo dhaqanka iyo diinta iyo aragtiday dadku leeyihin inay ilaaliso oo dadka la baro. qaybna bay yidhaahdaan cilmiga ka midi waa qaybta bini aadamku wadaago oo waa la kala gataa una iyada lacagtaada, dhakhtarnimada iyo injineernimada iyo waxyaabaha kalaynu sheegno, idaarada iyo handasada iyo waxaa la kala barto oo dhan. jaamacadkaad fiigaaga haddaad la baxdo waa maxay? waa kuu banaantay. therefore iyada waa la kala gataa. professorkana waad gadan kartaa, jaamacaddana ardaygaaga waad keeni kartaa, waa suuqa dhaqaale ee furan ee obinka. idan waxay dhahan tacliinta dunida waa saddexdaa qaybood. waa qayb aan laysu ogolayn secrets oo cid waliba inay ilaashato rabto, qayb saka layska gelinayo cid waliba inay faafiso ay rabto, iyo qayb mushtarak bini aadamku u yahay oo cid waliba ay gadayso.